nadara kale markii loo fiiriyo in Soomaalida maanta hadii ahaan lahayd in dad qabiilka isku dhacbano ama kala fog isma gursan lahayn isma dhaxgali lahayn qof walba waxa uu isku day lahay meeshii inuu xirto xuduud ka dhigto dhaho adeer ha isoo dhaafin meeshaad iga joog bidci lahayd laakiin taa nadarada kale markay guud ahaan loo fiiriyo waxa arkaysaa dadkii inay isdhaxgalayaan oo xaaladii caadi ee socoto maanta laba Soomaaliyeed isku aragto caalamka meel walba isku aragtay sidoo hooshooda wadanayaan ganacsiga isku wada biirinayaan laga yaabo shirkadda maanta dhanka ka shaqeysa in halka shaashi shirkadda oo kaliya inay tahay guud ahaanba meesha ay ka socdaan wax tacaawun la lahayo in laga yaabo maanta qof maanta maahir oo sheeko un qatar u ku yahay meel soo istaago alaaf Soomaali maanta inay taageerayso oo garabkiisa wada istaagaysan inuu fiirnay ninka weerar hebel ama weerar hebel inuu fiirnay Soomaalnimo u fiirnayso qadiyadii ugu dambeysay in ilhaan aheedo markii Mareykanka sheekada laga sheekay waxa arkaysa maanta Facebook markaa gashid nin walba Soomaali waxa uu taagan yahay garabkii yani garab asagoo u fiirneen reer hebel waaye bal iga leexsan u fiirneen marka nadarada marka loo fiiriyo naftarkeeda loo qaran marka loo fiiriyo soo lama dhigi karo dadkii marka ay maanta xukunka ama ku fadhiyay guud ahaanba ay ama siyaasiyiinta sida sheegtay guud ahaanba qofku u reejinayna dhahday ay u basi kale u bedelo mooyee dadka ma aha sida uma sameeysan soo lama dhigi karo horta mid ba kala jirta qofka Soomaaliga marka la shakhsiyada Soomaaliga waa shakhsiyad aad mucaqad ah يعني هو شخصية ممكن يسوي حربه كعقد دقيقة تهاي تنتي صح ضحي ممكن وحديتين هنا كعقد دقيقة تهاي وحن تمعقول بهنا أنا سأمريكا ما فهم سأمك هرتا لبضة شخصية سومالي جاه ماشي دونا كل هذا شخصية هم وحقول حياة مجرى قبيل كتونها لبضة قفية شخصية وحقول حياة مجرى لكن مشكلته حي ما نسا هذه مكسو إلهام سو هذا القاطع haddii la oran lahaa waayo dad badan ba ayaa ka bari lahaa soomaad garan laakiin haddii Soomaali dhexdeeda tahay ayaan ka hadlaya Soomaaliya in lahayn imka waa xildhibaan Soomaaliya haddii baarlamaanka Soomaaliya ku jiri lahayd deesaan looma taageereen yani waxa leedahay waa laga soo horjeesan lahaa ma qabiilkeedu ma taageer lahaa qolada kalena way ka soo horjeesan lahayd soomaad garan laakiin qadiyadii ba imka inaga fog waxay noqotay shacbi iyo shacbi ba is hay'adeen